waxa looga jeedayna wada hadalkan dib u soo noqday inuu noqdo ku dhab ah ku midad laga dhalinayo ku isku soo dhaweynaya Somaliland iyo Soomaaliya walka waxa noo qorshaysanaa shan qodob shanta qodob ayaa ku jira maanta minuteskan aan kala seexanay qodobka ugu horeeya waxa weeyaan sidaan shirarkeeni mustaqbalka sida quruxsan oo habaysan oo de hadafku uu ka yahay wada hadal maahine wada hadal midha keenaya taas waxa ingiriiska lagu yiraahdo code of conduct qodobka labaad waxa weeyaan sidee baan kalsoonidii dib u dhisnaabay ahayd confidence building gibe qodobka saddexaad dhowr arrimood oo Soomaaliya iyo Somaliland ay ku heshiiyeen shirar hore oo hirgelintoodii ay wax ka dhiman yihiin ama lagu dhaqaaqin ayay ahaayeen waxa kamida halka maalgelinta dhaqaale gargaarada maaragtay insaaniga sidee baan gudiyaal u soo saarnaayo wixii ay Soomaaliya ay lahayd Somaliland iyo Soomaaliya sidee baan u wada wadaagnaayo aan dadweynaheeni u gaarsiinaa maalgelinta dhaqaale iyo deeqda laga helayo dibadda gudi baan u saarnay gudigaasi wuxuu shiri doonaa 15 cisho kadib Djibouti ku shiri doonaa gudi labaadoo samada air traffic maamulkeegi u fiirsan doona ka shaqeyn doonana waan soo saarnay 15 cisho kadib ayuu Djibouti ku shiri doonaa gudi saddexaad oo ku lug leh ama ka shaqeyn doona nabad sugidda ayaa isagana la qorsheeyay saddexda gudi 15 cisho kadib waxay ku kulmi doonaan Djibouti waxaan ku magac siinay technical committees subcommittees gudigan wasiirada aan ku jirno magaciisu waxa weeyaan joint ministerial committee 45 cisho kadib ayuu haddana Djibouti ku kulmi doonaa sidoo u qiimeeyo qadariyo u qiyaaso wixii ay gudiyaashii technicalka ay soo qabteen waxay ku tusaysaa ina daacad iyo ina dab laga yahay hadafka lagu socdo ina meel la gaarsiyo ama la gaadhoba kolka waxaad ogaatiin madaxdeennii hadday 4 cisho wali joogaan madaxweyne Muuse Biixi intuu Djibouti miday buu joogaayo shakhsiyan ayuu waxaan ula socdaa saacadba saacad ayuu la socdaa shaqadan socota oo isagoo wafdigiisa ku dhiiri gelinaya ina hore loo socdo kalsoonidii la abuuro oo shaqadii ay noqoto shaqo hadaf leh oo macno leh oo qaaya leh oo damidha leh sidaasoo kale prime minister Xasan Ali Kheere madaxweynihiisii uu la socday uu ka hadhay hotelkan buu ku jira isaguna tallaabo ayuu ula socdaa shaqadan qabsoomaysa ay qabsoomatay sidii runta shirkan Djibouti ku qabsoomay inuu ka duwan yahay shirarkii kale ayaan qabnaa waayo waxaad ogaatiin haddii aanana ku Soomaalinahay shisheeyuhu meesha boogtu ku taalo bilow arki karaya haddana dawadeedii uu ku raagaan u maleeno uu garan waayo Djibouti waxay la tahay annagoo qadarinayna ixtiraamayna madax bannaanida Somaliland iyo Soomaaliya waxaan leenahay Djibouti waa walaalka weeyaan walaalihiin weeyaan iyaga garanaya siday niigu garab galaan hadafkan aad ku socotiin madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle kolkuu ogolaaday inuu haddana initiative kan inuu hormood u noqdo oo hogaam u noqdo shucuurkaabuu qabay dareenkaabuu qabay wuxuuna goostay inuuna ka hadhin arrintan inuu ku garab galo walaalihii madaxdii Somaliland iyo Soomaaliya siday hadafka ay ku socdaan ay u gaadhaan isagoo isgarab taagan